wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka xildhibaanada gudoomiyaha degmada Wasil ciidanka qalabka sida iyo dhammaan gudiga ku hawlana difaacan deegaankiisa abaabulkiisa waxtarkiisa taliyaha degmada Wasil booliiska dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu bacdi salaam halkan waxaan saaka u fadhinaa arrin ku saabsan deegaankan iyo difaaciisa iyo xaaladihii ka jiray waxaan soo gaarnay shalay degmada Wasil waxaana u nimid inaan xaaladda ka jirto la qiimeeyo xaaladdu sida ay tahay gaar ahaanna wixii annaga aan fidin karnay oo taakulaana waa keennay haddana waxaan ku wareejinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada Wasil intaa ka bacdi waxaan rabaa halkan inaan baaq uga jeediyo dadka ku abtirsada deegaankan hadday jaaliyadaha yihiin hadday dadka gudaha yihiin siyaasiyiinta dhammaan inaan baaq u jeedsho iyo maamulka galmudugba aan iraahdo deegaankan wuxuu u baahan yahay cadawga wuxuu ku hayaa duulaan kol hore wuxuu ku soo duulay deegaamada galmudug qayb ka mid ah galgaduudda bari iyo mudugta bari intaba uu joogay koonfurta mudug intaba uu joogay inta ka bacdina wuxuu ku soo siqayaa markaste deegaanadii gudaha ahaa oo muddo laga jooga 4 bilood uu yimid Bacadweyne haddana uu Wasil soo weeraray in 4 hameen ka hor intaas markay marayso waxaan ugu baaqi lahaa dadku inay iska difaacaan colaadaas inta dabada jirta intii dhaqaale ku bixinaysay intii difaaca tagaysaba cadawga la iska difaaco loo wada gurmado insha Allah taala intaas aan ugu baaqaynaa sida xildhibaankii hore u sheegaba annaga meeshan shalay waxaan nimid waxaan u nimid inaan qayb ka noqono halganka lagula jiro kooxda qawaarijta ee shabaab horana aan mid hayn dadkii halgan kula jiray oo dadkii halkan nooga soo horreeyay marka kooda waxaan rabaa inaan u tacsiyeeno intii ku dhimatay falkii argagixisadu ay ka geysatay degmada Wasil waxaan leenahay intii ku shahiidana ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu u gartay waa la dhiman lahaa meel fiican markii nabiga shahiidnimada ka hadlay wuxuu yiri allahumma amitna bi shuhada ilaahu shahiidnimada ugu dilbaa nabi maxamed yiri waa dad shahiidoobay shahiidnimada darajada lagu gaaro culimada iyo ambiyada dhammaan marka ambiyada lagu hormariyo shuhadada lagu xijiyo culimada waa ka dambaysa xagga fadliga markii kitaabada lagu hadlay marka nasiib bay lahaayeen dadkii walaalaha ay ka gooreen waxa leena sabr iyo Allah ku arsuqo ilaahay subxaanahu wa ta'aala saasan u weydiideena waxaan rabaa dhammaan dadka ku abtirsada degmada Wasil gobolka mudug reer galmudug dhammaan meel ay jiraanba walaalayaal cadawga argagixisada hadii maalinba qayb fiirsato aakhir ugu dambeeyo wuxuu isugu tagayaa salka u dambeeya marka waxaan rabnaa nafteena anaga waa keenay dadka maqan oo walaalaha oo meesha fag jira iyo kuwa dhow waxaan leeyahay qof kasta qayb ha ka qaato qofkii af iyo gacan iyo aadin iyo maal inta waa loo baahan yahay dadka fagna waxaan leeyahay sida wax ku wadaan si ka sii fiican waa saas loola sii dhawaado ninkii yiri annaga ka mahad celina waxaan rabnaa inay la sii dhawaataan arintan qayb laga qaato annaga ka xildhibaano iyo wasiirka ragga aan wada soconay wixii karaankeena oo deeqa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha Wasil iyo ku-xigeenada waxaan u keenay wixii karaankeena waa u keenay oo ku wareejinay cid kastana waxaan rabnaa qayb inay ka qaadato waxaan diyaar u nahay nafteena iyo maalkeena khawaarishaas in lagu diro radii Ilaahay idmo waxaan reer Wasil ugu baaqo dadka xogaaga yarka maalintii dhaweyd magaalada geeskeeda tahay inay soo laabtaan magaalada Camiraan jihaadka qaybkooda ay ka qaataan dadkan dad badan ma dad yar waxa weeye argagixisad bis oo laakiin fulayana waqti badan hadii maalmo yar waqti lagu bixiyo aan sii joogno gobolkan waana rajaydeena insha Allah taala reer galmudug dhamaan in laga safay doono waxaan rabaa maamulka galmudug oo madaxweynuhu ka yana ugu baaqo hadda meeshan ma sha Allah waa soo gurmateen waa timaadeen laakiin waxa la rabaa saas oo loola sii dhawaado in qayb culus dhaqal qaato argagixisada la israaciyo baan la wareegno laakiin munaasabadan waxa iska leh xildhibaanada deeqda ay soo gaarsiiyeen wala kale tan saakay waa noo dhiibeen waxa u dhiibnay gudoomiyaha ku-xigeenka dawladda hoose runtii baaqi iyo hadalkii waxaan la qabaa xildhibaanada waxa ay soo jeediyeen baan la qabaa laakiin waxaan rabnaa inaan ogeysiino kaliya maamulka gobolku ujeedka iyo danta uu leeyahay iyo xildhibaanadayada iyo danta dhammaan waxa weeye inaanu difaacaas adkayno oo aan hore u ruqaansanno oo aan cadowga riijino waxa la wixii deeqoona soo gaarana
gobolka waa loo keenayaa laakiin waxaa mas-uuliyadda iyo qabashada iska leh gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka ay samaysteen iyo odayaasha dhaqanku la shaqaynaya gudoomiye saaka waxaan kugu wareejinay raashinkii dawladda hoose haddana waxaan kugu wareejinaynaa deeqdii ay xildhibaanadu iyo wasiir ku-xigeenku noo keeneen oo baabuurka saaran la wareeg gacanta ku dhig maamulkii hoose ee logisticna ee gobol ahaan adaan kugu ogna waan mataqaan magaranaysa arrintaas ayada ah waan qaadanay waan ku mahadsantihiin difaacuna waxa waajib weeye hadda ka horna maanta habeenka dhow difaaca waa laga qayb galay oo ciidan kale maahan dhammaan waa la wada difaacay haddana diyaar ma u nahay waxaa weeye deeqda aad noo keenteenna waa ku mahadsantihiin aad baan ku mahad celinaynaa wixii kale oo na maqal hayana waa sidaad u sheegteen weeyo waxaa weeye waxaan doonaynaa inay arrintaas ka soo qayb galaan guryaha baaba'ay dad masaakiina ku baaba'ay naagaha baaba'ay ilmaha baaba'ay duurarka way joogaan waxaan ku talagalnay inaan soo celinno mar haddaan u helno waxu helno dhaqaal waa soo celinaynaa waayo dadka ilmihii way tageen xaaladku waa la fogay laakiin raggii nin ma tegin raggii dhammaantood difaac ku jira soo garan marka waxaan idinkaa mahad celinaynaa waxaad noo keenteen dowladda hoose iyo deegaanka waxay noo keeneen waa qabannay kaa noo keenteen waa qabannay waana ku mahadsantihiin